الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya, xildhibaanada labada aqal, mas'uuliyiinta kala gedisan, bulshada qaybaheeda kala duwan ee maantay nagu martiqaaday gobasha sharafta badan, barbaarka gaashaaman ee gadaashayda taagan, dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waxaa sharaf iyo raynrayn noo ah maantay inaan idinkala soo qayb galno munaasabadan lagu ayidayo nabadda magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir. runtii bahweynta hawiye ee gogoshaan noo dhigtay nagu martiqaaday waan uga mahad celinayaa sida ay u muujiyeen dareenkooda damiirta wadaniyeed, daljecel iyo dadjecel uu ku dheehan yahay. mudanayaal iyo marwooyin, waxaa ballan ilaahay nagu ah anigoo ku hadlaya dhammaan hay-adaha dowladda, madaxweyne iyo baarlamaanka iyo reer Banaadir oo dhan iyo madaxda ciidamada iyo ciidamadaba qayb kastoo dowladda codkooda leh ku hadlaya, waxaa ballan ilaahay nagu ah inaan fulino, aan ka jawaabno codsiga iyo rabitaanka aad halkan ka muujiseen. walaalayaal, waan dareemi karnaa danqashada aad u danqanaysaan nabadda bulaashay, bilicda caasimadiinna iyo baraaraha dadkiina. waxaan ognahay dhibaatooyinkii la soo maray sida ay dadka iyo dalkuba u yaaleen, muuqaalka wanaagsan dalkana wuu dib dhaaway. waayahay, waa mahadsantihiin barbaarka gaashaaman. waxaan rabaa inaan mar walba muujiyo sida aan idinkugu garab taagannahay, dowladda Soomaaliya ay idinkugu garab taagan tahay, dareenkiina foojigan oo ka foojigan wax alla wixii wax u dhimaya nolosha bulshada iyo bilicda caasimadda. waxaan idinkaga mahad celinayaa sida aad u garateen ee aad uga dhaydhiseen damiir laawayaasha mar walba abaabula waxyaabaha liddu ku ah wadajirka iyo dowladnimada Soomaaliyeed. maalin kasta oo guri bilicli uu ku soo qorno oo waddo nadiifii ay ku soo qururto, dabay dhibaysaa. waxaanu shaqaynaahu waa horumarka dadkeennan. waxaanu shaqaynaahu waxay tahay in bulshada reer Banaadir ay hesho caafimaad. waxaan u shaqaynaa bulshada Banaadir inay hesho waxbarasho. waxaan u shaqaynaa bulshada reer Banaadir inay helaan biyo nadiif ah iyo koronto qiimo jaban.
وحبداً واحد يجلي وحبداً وأسعنا إلى الجارة بإذن الله الكريم ayaan uga xunnahay mana soo dhaweynayno baaqidii dhiilada colaadeed xambaarsanaa ee maalmihii lasoo dhaafay ka soo yeeray odayaashii ka dhashay bahweyntan laakiin aan hubo inaan lagu raacsanayn xaqiiqdu waxay tahay beelweynta hawiye halkan joogta rabitaanka ay maanta halkan ka muujiyeen inta aad nabadiina ilaashanaysaan waxaan ugu ballanaa inaan idinku horkacno sida aad u doonaysaana aan u dhaqan gelin danta guud ha loo dadaalo waa mahadsan tahay sidoo kale waa mahadsan yihiin badbaadka gaashaaman walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin muddo fara badan aad joogteen ma rabo inaan hadalka idinku dheereeyo mar kasta oo dareenkiina inaad muujisaan aad doonaysaan sidaan oo kale loo soo wargeliya waa idin imaanaynaa waana idinkala qayb qaadanaynaa waxaan rabnaa inaanaan ka yeelin inaydaan ka yeelin kuwa ku taliya ama ku talinaya magaaladaani inay mar kale ay dunto ay mugdi noqoto mid baan maqlayaa ku talinaya ama ku baaqaya in canshuurta la joojiyo canshuurta oo la joojiyo waa haddii ayuu ku taliyey canshuurta in la joojiyo ayuu ku talinayaa wuxuu ku baaqayaa in balaayo dhacdo oo dagaalla ay dhacaan waddooyinkii aan shala dhisnay taayaruu ku gubaya wuxuu leeyahay marka dad yahow aniga halay doorto anigaa idin rooni runtiis miya hawiye nimaan u dhimrihaynino dhaaraya wax u dhiibaman dhaaraya u dhiibaman aad ayaad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan muujiyo nimanka mas-uuliyiinta ahaan jiray ama murashaxiinta madaxweynaha soo ahaan jiray haddana noo sheegay inay yihiin madaxweynaha hadda ay diidan yihiin xilka haaya codadkii ayagu ay heleen ayagaa la jeclaaday oo siiyey maantay marka ma garanayo aniga hal cod ma siin murashaxna ma hayn xildhibaanna ma hayn laakiin waxaan goobjoog ka ahaa meesha doorashadu ka dhacaysa qof kasta oo iyaga ka mid ah intuu la ekaadaba wuxuu helay tiro codad ah waxaa codaynayay xildhibaanadii soomaaliyeed tiradii uu helay mid kale ma siin hawiyaha uu hadda sheegayo ma uusan siin uu ka ordaayey wuxuu siiyey maxamed cabdullaahi farmaajo codadkii uy siiyeen ayuu madaxweyne ku noqday haddana isagii ayaa madaxweyne ka ahaan la ayagii isuma ogola isagana uma ogola bal waxay rabaan adigu loo sheeg doorashooyinkii la dhigay sharciyadooda baarlamaanka labadiisa aqal ay dhigeen madaxweynuhu saxiixay inay diideen waa laga sheekeeyey kii ay ayagu ku taliyeen inay diideen waa laga sheekeeyey midkan ay ayagu dhigteen ayaga ayaa soo xulan lahaa xildhibaanada labadooda aqal doorashada madaxweynuhuna waxay ka dhacaysaa meesha ay ka dhici jirtay meel wax laga farsamay karo kumaba taalo marna ayagaa keensanaya xildhibaanada guddiyadana ayagaa keensaday haddana ayagii hor istaagay
marka tii qof iyo cod ahaydna waa diideen tii dad baneedo ayagu keeneenna waa diideen in dowladnimada hore u socotay waa diideen bal waxaa xala adinku keena waxaan rabaa walaalayaal jiijiid kasta oo siyaasadeed waa waqti kooban waa dhammaanaya haddii aan leedno balse wadajirkeenna iyo nabadeenna waa inaan ku dadaallo waa sida aad u barateen sidaas ayaana idinkugu garab taagaan doonaa idinkalana shaqayn doonaa biidni illaahi alkariim intaas ayaan rabaa inaan adalladeeda ku gaabiyo